qofkii hal wanaag la yimaada waxa uu leeyahay 10 laab qofkii hal xumaan la yimaadana waxa uu leeyahay hal dambi waa jacayl iyo la jeclo uu rabbi inoogu sheegaya in uu wanaag kasta oo aynu sameeyno inagu siinayo 10 laab iyo wax ka badan oo ku xiran sida uu qofku wanaaga u qurxiyo oo uu wanaajiyo heer halka wanaag abaalkiisu uu mararka qaar gaarayo 10 jibaar iyo wax ka badan xumaantana oo kaliya tiradeeda oo dambi ah inuu qoriyo Allah subhanahu wa ta'ala oo qofka laba jir dambaaba oo laba dambi u qoriyo iyadoo uu waliba siinayo boqolaal fursadood oo uu ku toobad keeni karo adoonku isagoo alle uga bilaabaya in marka uu adoonku dambaabo aanay malaa'iktu toos u qorin dambiga ee uu alla amray in ay muddo u kaga noqon karo siiyaan oo ay sugaan deeqsinimada alle oo aynan ka sheekeyn karayn bal aynu hal tusaale u soo qaadano quraanka xaraf kasta oo kamid ahi waa 10 ajar sida nabigu noo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam haddaba waxaan isla xisaabinanaa hal bog oo quraanka kariimka kamid ah inta ajar ee uu alla ku bixiyo waa inta ugu yar ee aynu ognahay laynku waxa uu badanaa u dhaxeeyaa 32 ilaa 42 xaraf oo bogaga qaarkood laymankoodu ama halkii layn waxa dhacda inuu noqdo 35 37 36 40 haddaba waxaanu qaadanaa tiro dhex ah oo ah 35 xaraf 35 xaraf oo halkii layn ah marka aynu ku dhufano 10kii ajar ee xaraf walba ahaa waxa inoo soo baxaya 350 ajar ya allah haddaba hal layn boguna badana waa 15 layn marka 350kii oo halkan layn noqday baynu ku dhufanaynaa 15 layn waxa inoo soo baxaya 5250 ajar waa halkii bog waana inta ugu yar waxa sadacda in uu alla ajarka iyo abaalka intan uga sii badiyo adoonka iyadoo sidii aynu soo sheegnay loo eegayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu eegayo sida uu adoonku u sii qurxiyo ee uu hagaajiyo amalka balka waran labada bog balka waran bog balka waran 20 bog oo jidka balka waran qofka khatma sameeyay quraanka ba dhameeya oo wada akhriya wanaagsane waa ilaahay salaam